Sida aan la wada socono, fanaanka Sharma Boy ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay kala tageen xaaskiisii hore Malyuun Maanka. Waqti ka hor waxay ahaayeen lamaane aad isku jecel isla markaana uu ka dhexeeyay xiriir jecel oo qurux badan. Qof walba waxa uu dareemi jiray in mas'uuliyad gaar ay saaran tahay, balse calafka uu soo dhammaaday dartiisa waxaa istaagay jaceylkii. Waxaana fariin ka timid calafka arrintaas ay keentay inay kala tagaan labadooda. Inkastoo muuqaal Sharma Boy iska soo duubay uu ku faahfaahiyay kala tagga isaga iyo xaaskiisii hore, balse kama hadlayno mana qusayso warbixinteenna maxay lamaanahan u kala tageen iyo qaladka lahaa. Ma ogaan kartid sababta dhabta oo kala tagooda quseeya, laakiinse waa arrin sir mar waliba u ah lamaane kasta oo kala tegaya waxa ay ku kala tageen. Balse waxaan ifi doonaa laba arrin oo Malyuun Maanka ay kaga wanaagsan tahay gabdho badan oo la furay balse social media caan ka ah. Arrinta koowaad, Malyuun weli ma aysan ka hadlin furiinkeeda. Waxa ay muujisay xishoodkii lagu yaqaano dumarka. Waxay dumar badan tustay haddii la kala tago in macnaheedu uusan ahayn in gabadha ay hadasho oo afka ay furato, maadaama jaceylku uu sir yahay nolosha ama calafka uu dhammaadayna aysan mudnayn in la qodqodo. Malyuun waxay ka dhowrsanaatay in social media ay kaga hadasho furiinkeeda. Waxaan la soconnaa in gabdho badan oo caan ah ama rag caan ay qabeen markay kala tageen in social media ay soo dhigeen muuqaalo ay kaga hadlayeen furiinkooda. Kala tagga waxa sababta uu ahaa iyo sidoo kale xumaan qofkii ay kala tageen laga faafinayo. Arrinta labaad, Malyuun waa gabar asturan, xitaa fanka inta ay ku jirto waxay ahayd gabar ku dadaali jirtay inay iska adkaato oo nolosheeda aysan social media keenin. Waxay hadda baraheeda bulshada khaasatan barteeda TikTok ay soo dhigtay muuqaalo cusub oo ay xiran tahay xijaab kuna muujinayso in xishoodkii iyo asturnaantii aysan ka tegin weli. Xiriirka jaceylka ama calafka haddii uu dhammaado, waxaan dhammaan isqadarintii iyo sidoo kale walaalnimadii markii hore labada qof midaysay. Dadka ayaa bilaabay in gabadhan ay niidhis u muujiyaan, isla markaana waxay la dhaceen degganaanta ka muuqata iyo sida ay sameeyaan gabdhaha la furo qaarkood oo aysan iyadu ku dhiiran. Sharma Boy iyo Malyuun waxaa soo ilaaday calafkoodii, isla markaana waxaa dhammaaday waayahoodii joogitaanka iyo wehelkii jaceylka ee mar walba ku dhehnaa iska warqabka.